السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولا ريال مقعي عبد الله محمود. ما أنت وحين قاعدين إن 10 كيني سديدات 10 كينو وحكو سابسية ما أنت قابكي خراشاتكي كمبنيجو وبحيني أروح ريكورد كران هاي سيدا كورنتدي بيهي سلري وكالاتو وسيني شقاليالي شقالي وشقيني marka qaabkii loo record kareyn lahaa been maanta baranayna insha Allah ta'ala. Okay, bal horta aynu tagno intaanay record kareyn balance sheet kene tagno. Okay, report been tagayna balance sheet baan ku dhufanayna. Waalidkeen waxaanu ku jira 1800 inventory-ga shirkadu ku shaqeynayso waa 900 iyo 9200 dollar. Lacagta waxa weeye qasnada ان iibkeeno ku jiro wali u wareegin waalidka u wareegin waa 3460 dollar asset-ka total ahaan in ku shaqeynaa shirkadu haysato waa 14460 waxa leena ku haray 1000 dollar oo leena ku leeyahay lacagtina waa tan si loo kala leeyahay سعيد أحمد وحليه 3000 أحمد علي وحليه 5000 عبد السمد وحليه 4000 يستحق بقول نتين كام كان العقدين فإني وحوي وكن $160 بين فائدة سمعني ألعبتين يبني أوكي وحرمنا أنا مركز خرشاتكي أينو بحنو كورنتدي شغالين بحني رمنا مركز ورثة مركز حنتينا بانك بين تجينا أوكي ريتي تشيك بنقول فننا ريتي تشيك قرط نقول فنو أوكي waxaan dhahaynaa halkan lacagta ayaa la siinaya lacagta waxaan siinaa dhahaynaa مثلا محمد فارح عبدي waan siinaa yaa weeye biyiri name not found biyiri quick boogie okay hadda baro baan dhahaynaa waa employee waa shaqaale shirkadda ka shaqeeyo okay account-kigi marka halkan net noven dhehna okay shaqaalay halkan waxa ku qoraynaa marka account-ki lacagtan salary baan dhehna halkan salary setup baan dhehna salary waxa weeye waa expenses weeye akhrashaad okay save baan dhehna waxaan siinayna okay amount-igu intee weeye marka lacagta maxamed faarax qaadanayo wuxuu maxamed faarax qaadanayaa mushaharaan u siinayna مثلا $250 bay mushaharaan u siinayna okay baan dhahaynaa save and close baan dhahaynaa okay lacagteeni waalidkeeni waa kan waxa ka go'ay lacag baa ka go'day 250 awal kore 1800 baa hadda se waxa weeye lacag baa ka go'day sidoo kale net income keeni halkan iyana saameyn baa ku dhacday 1000 iyo xogaa hadda ay ahayd lacag baa ka go'day iyana $910 baa noqotay okay haddana waxaan rabnaa inaan bixino korontadiina bixinay rabnaa ready check bensla meesha ku qoraynaa company-ga leh korontadu yaa weeye company-ga magaciisa halka ku qoraysaa hadda matalan waxaan ku qoraynaa oo kaleeto shirkadda OPEC korontada OPEC Electricity Company waa iskale lacagta okay key card baan dhahaynaa waa funder weeye okay baan dhahaynaa okay account-iga halka waxaan ku qoraynaa waa electricity electricity-gu marka waxa weeye waxaan dhahaynaa kharash okay continue baan dhahaynaa save and close baan dhahaynaa kadib intee koronto laga qaaday $10 oo koronto aan bixinay مثلا tusaalahan okay marka waxa dhahaysaa save and close okay lacagteeni waxba ka go'ay 1550 bay haday ahayd 1500 bay noqotay sidoo kale net income keeni iyana waxa ka go'ay $860 bay noqotay labada account bay ka saameeyay okay qarashaadkii iyaga xaggan leena ka tusmay balance sheet-ka laakiin xaggan ka arki karaa profit and loss standard kan ka arki karnaa sales keeni ibinay waa $3460
okay costigii alaabtii la fahayn alaabta ka soo bixinay 2300 bay ahayd waxaan ka faa'iidnay lacagtan ka faa'iidnay 1160 bay ahayd expenseski marka kharashaadkii aynu galay waa kuwan electricity waxaan bixinay $50 salary waxaan bixinay mushaar ahaan $250 okay total expenses keeni 300 buu noqday marka total expenses keeni wax laga gooyay total income keeni okay net income keeni intaasu noqday 860 marka maanta 10 intaas ku joojinaynaa waxaan rajaynayaa si fiican u fahanteen qofkii aan fahmin waxaan rajaynayaa inuu ku soo celiyo si wixii uu si fiican ugu fahmo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.